Let's learn English. soo baxa aan barano Englishka ku soo dhawow cashirka koowaad ee koorsada ee ciwaankiisu yahay soo dhaweyn balse intaynaan u bilaabin cashirka aan idiin sheego qaabka cashirku isugu xixigo ama uu u baxaayo qaybta koowaad ee cashirka waxaad ku qaadan doontaa conversation ama wada sheekaysi wada sheekaysigaas oo ay wada sheekaysan doonaan Ana iyo qof kaleeto qaybta labaad ee cashirka waxaad ku qaadan doontaa vocabulary ama erayo erayada ku dhex jira conversationka ayaa mid lagugu qeexi doonaa kuwa ugu waaweyn qaybta saddexaad waxay noqon doontaa pronunciation waxaa jiro jumlooyinka qaar marba si in loo dhaho so waxaa lagu tusi doonaa jumlooyinka qaar markaad degdegsantahay saa u dhehaysid markaad tartiib yani u dhehaysid oo kaleeto saa u dhehaysid ayaa lagu tusi doonaa qaybta ugu dambeysana waxay noqon doontaa practice oo ah listen and then speak waa dhegaysanaysaa kadibna waa ku soo celinaysaa wixii aad dhegaysatay taas waxay ka caawin doontaa practice inaad practice garisid conversationka hadda qaadatay so aan bilowna markaa Hi, are you Anna? Yes. Hi there. Are you Pete? I am Pete. Nice to meet you. Oh, Hi, are you Anna? waan ku salaamay ma adigaa Ana yes. Hi there. Are you Pete? haa waan kaa qaaday ma adigaa Pete I am Pete. waxaan ahay Pete Nice to meet you. waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo Oh, let's try that again. I'm Anna. Nice to meet you. I'm Pete. Anna, is that A-N-A? Let's try that again. aan isku dayno mar kale I'm Anna. Nice to meet you. waxaan ahay Ana waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo I'm Pete. Anna, is that A-N-A? waxaan ahay Pete Ana ma A-N-A ba No, A-N-N-A. maya waa A-N-N-A Well, Anna with two N's. Welcome to 1400 Irving Street. haye Ana oo leh laba N ku soo dhawow waddada 1400 Arriving My new apartment. gurigayga cusub waa hagaag Apartment. Apartment. An apartment is a rented room or set of rooms. apartment micnaheedu waxaa weeyaan guri laakiin guri caadi maaha guriga caadiga waxaa loo yaqaanaa house ayaa loo yaqaanaa dabaqa qayb ka mida ayaa waxaa loo yaqaanaa apartment dadka dabaqyada degan oo kaleeto waxaa leenahay apartment ayuu ka degan yahay dabaq hebel qofkaas dabaqaas ayuu ka degan yahay apartment hebel so apartment waa qayb ka mida dabaq wuxuu ku tacriifinayaa hadda asaga uu sharxayaa a rented room or a set of rooms waa inaad ka kireysatid qol ama qolal badan inaad building ka kireysatid dabaq inaad ka kireysatid ama ka gadatid waxay rabtaa ahaato kiro ama gadoosho waxay rabtaa ahaato so marka apartment waa qayb ka mid ah dabaqa ayaa waxaa loo yaqaanaa apartment Meet. Meet. Meet means to see and speak to someone for the first time. meet micnaheedu waxa weeyaan kulmid ama la kulmid inaad qof la kulantid to see and speak to someone for the first time inaad aragtid ama aad la hadashid qof markii isku kiin horeysay New. New. New means not known before, recently bought or rented. new micnaheedu waxaa weeye cusub not know before recently bought or rented wax aadan horey u kasaynin oo dhowaan soo gadatay ama aad kireysatay Nice. Nice. Nice means good and enjoyable. nice micnaheedu waxa weeyaan wax fiican good and enjoyable good wax fiican and enjoyable oo lagu farxo nice
street, street. A street is a road in a city, town, or village. street street micnaheedu waxa weeyaan wado. A road on a city, town or a village waa wado ku taalo caasimad ama magaalo ama xaafad mid yarata ha ahaato. Street waa wado. Try, try. Try means to make an effort to do something. Try waa isku dayid. To make an effort to do something inaad bixisid dadaal si aad wax u samaysid. To make an effort dadaal. To do something si aad wax u samaysid. Welcome, welcome. Welcome is used as a friendly greeting to someone who arrives at a place. Welcome soo dhaweyn. Welcome soo dhaweyn. Waxaa loo isticmaalaa as a friendly greeting to someone who arrive at a place. Inaad si saaxiibtinimo leh aad ku soo dhaweysid ama ku salaantid qof who arrive a place. Arrive soo gaaray ama imaaday to a place meel imaaday. Qaybta pronunciation-ka. Slow speech, I am Pete. fast speech. I'm Pete. Slow speech. Markii aad tartiib u hadlaysid oo aad rabtid magacaaga inaad sheegtid, waxaad dhihi kartaa I am hebel magacaaga. Tusaale ahaan, I am Pete. Fast speech. Markii aad hadalkaaga boobsiinaysid, waxaad dhahaysaa I'm Pete. I'm Pete. Yacni waxaa isku qabanaysaa ayda iyo amta waa isku qabanaysaa. So waxaad leedahay I'm Pete. I am, I'm. Meesha ka dhigida I I am. am waxaad dhahaysaa I'm. I'm. Now you try it. Say your name. So hadeertan isku day adi. I'm Rahma. Qaybta ugu dambeyda practice. Dhegeyso kadibna ka daba dheh. So hadeertan listen. Listen. Hi, Speak. Speak. Hadeertan hadal marka ka daba dheh. Hi. listen. Dhegeyso. I am Pete. Speak. Hadal hadda marka adi ka daba dheh. I am Pete. Speak and say your name. Hadeertan magacaaga dheh marka. I am magacaaga. Listen. Dhegeyso. Nice to meet you. Ka daba dheh. Speak. Nice to meet you. Listen. Dhegeyso. I'm Anna. A-N-N-A. Speak and say your name. Hadda ka daba dheh marka. I am Rahma. Then spell your name. Kadib magacaada inkaadi. R-A-H-M-A. Rahma. Hagaag, cashirka ugu horeeyey halahaas ayuu ku egyahay. Hadda waxaan qaadanay first lecture oo ah welcoming in aana la soo dhaweynayay, lagu soo dhaweynayay magaalada, lagu soo dhaweynayay guri cusub. Cashirka xiga ayaan qaadan doonaa Britole, sidaas ayayna noogu sii socon doontaa. Sidoo kaleeto waxaan rajeynayaa qof walbo inuu qaadan doono cashirkan ka hor cashirada kaleeto. Sababtoo ah waxyaabo badan oo hadda inta ku sheegayo cashirada kaleeto ma ku sheegi doone oo yacni haddartan qaabka iyo waxaan baxaya waxaasna inta ku sheegaya hadhowtoole xagga ma ku sheegi doone sababtoo ah hadda inta ku sheego soo maaha. So make sure guys inaad qaadatiin cashirkan ka hor cashirada kaleeto. I don't know qofkii cashirkaas arko dambe soo cashirkan ku arki doona laakiin anyway
cashiraanta dambe ma ku sheegi doonaa waxa hadda ku sheegay. Truths ayaan u geli doonaa conversationka, kadib vocabulary-ga ayaan sharxi doonaa, kadib pronunciation-ka, kadibna practice-ka. Practice-ka xataa adiga ayaa samayn doontid oo aniga listen dhegeyso, kadib speak hadal aan ku dhihi doonaa, ma fahanteen? So halkaas saas ayay noogu sii socon doontaa intaa ku kulmi doonaa cashirka xiga. Asalaamu calaykum. Nabadgelyo.